السلام عليكم daawadayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay xeebtii horarka ahayd filimku wuxuu ku bilaabanayaa arday iskuulka soo dhameysay kuwaas oo ku caawinayo xeeb ku taalo wadankaas iyo Mareykanka siday u ciyaarayeen in lagu magacaabo Mitch ayaa wuxuu keenay fikrad ah in telefoonada la iska qaado si aan la isku fashilin kadibna laba wiil oo ku magacaabo Vance iyo Gilbert ayaa waxay keeneen ukun weyn oo sidii xanjo oo kale ah waxayna sheegeen inay badda ka soo dhax qaadeen maalintii xigtay waxay ku soo baraarugeen in lagu magacaabo Kyle waxay la hurday in lagu magacaabo Mitch halka Chandler iyo Jonah ay isla hurdeen Vance iyo Ronina way isla hurdeen sidoo kale Kyle ayaa waxay noqotay tan ku soo farkacdo kadibna waxay aragtay shimbir bacaadka dhulka dido ayadoo ay ku adagtahay inay buusho laakiin waxa dhacday in shimbirtii ay kuusto Kyle ayaa argagaxday waxay dadka ugu dhigteen inay xeebta aadaan keenin waxa dhacday laakiin waxa dhacday saaxiibteeda Manja ayaa waxay istiri talaabo u qaad dhankaas iyo bacaadka laakiin lugteeda ayaa ku xanibantay bacaadka qooxdii ayaa yaabeen Vance ayaa isku dayay inuu caawiyo laakiin Kyle oo ogeed ayaa ugu digtay inuu bacaadka aado waxa la dhacday in isaga laftirkiisa uu bacaadka ku xayirmo Vance markuu isku dayay inuu madaxiisa kor u qaado wuxuu arkay in ciid ay cintay qaybtii dhulka u taalay ee jirkiisa bacaadka ayuuna ku quusay taasi oo fajac ay amka ku noqotay dhalinyartii markay isku dayeen inay qof wacan waxay ogaadeen in habeenkii xalay ahaa ay moobilada iska ururiyeen John ayaa isku dayay inuu baawurka kiciyo laakiin batarigii ayaa ka dhamaaday Kyle ayaa dhankaasi xeebta u dhaqaaqday gacanteedana waxay u raaricisay dhankaas iyo bacaadka waxayna aragtay shucaac cad oo soo raacayo gacanteeda kadibna waxa soo kacay saaxiibkooda kale lagu magacaabo Gilbert oo asagana ku dhaxaniban mid ka mid ah haamaha shidaalka qooxdii ayaa Gilbert ku dhigay inuu bacaadka soo aado saacado kadib qofna uma soo imaan Kyle ayaa waxay yeeshay tareenka cadceeda waxay u dhiibtay kuwa qoraxda joogo Gilbert wuxuu qarka u saaran yahay inuu isdhiibo laakiin Kyle ayaa ku dhiirigelisay inuu u adkaysto dhibaatadani Kyle ayaa waxay aragtay ukuntii ay habeenkii xalay ahaa ay badda ka soo bixiyeen in ay dilaacday waxayna ogaadeen in ukuntaas wax ka soo baxay ay dhibaatadani wadaan Kyle sidee u tirso Gilbert qatarta bacaadka waxay bilowday inay moos ku tuuriyeyso bacaadka Gilbertna waa uu rumaystay khatarta bacaadka uu leeyahay Jonathan ayaa baawurka ka degday wuxuuna bilaabay in uu laba alwaax uu isku keeno si uu ka gudbo bacaadka markuu u dhawaaday inuu ka gudbo alwaax ayaa dhaqaaqay Jonathan wuxuu u dhawaaday in uu bacaadka ku dhaxdhaco laakiin waxa dhacday shucaac ka imaanay bacaadka in uu calooshiisa soo gaaro taasoo dhaawac yar gaarsiisay ugu dambeyntii Jonathan waa uu ka soo badbaaday bacaadka laakiin calooshiisa ayaa dhaawac soo gaaray Jonathan ayaa wuxuu bilaabay in uu qudaar ka baaro boorso tan nambarkii caloosha ka soo gaaray ayaa sii faafay waxaana dhacday in uu dheecaan keeno Jonathan ayaa bilaabay inuu cabaado Jonathan wuxuu bilaabay in caagadihii biyaha iyo qudaarta uu u qaybiyo dhalinyaradii ku xadhimaa bacaadka isagoo la xanuunsanayo nabarkii ka soo gaaray calooshiisa laakiin ugu dambeyntii Jonathan waa uu awood waayay inuu sii wado qaybinta biyaha iyo raashinka xanuunka haayo awgeed kooxda dhalinyarada ayaa waxay ogaadeen in bahalka uu sii weynaanayo qatartiisana ay sidoo kale badanayso Kyle ayaa waxay aqoonsatay xargaha bahalka oo ku dhegayo taayirada baawurkooda waxayna ogaadeen in iyaan yar kadib uu bahalkii awoodaayo in uu baawurkooda dhan uu laqo saacado kadib waxa dhacday in baawur booliis uu u yimaaday dhalinyaradii ayaa ku buuqay baawurkii booliiska ahaa ayagoo garab weydiisanayo ninkii booliiska ahaa ayaa wuxuu isiri waa dhalinyaro cabsan hadalkoodana run uma uusan qaadan Kyle ayaa bilowday inay ku digto booliiskii inuu baawurkiisa ka soo dego laakiin waa uu ka soo degay ninkii booliiska ahaa qooxdii ayaa yaabeen markay arkeen in bahalkii dadcunka ahaa uusan taabanayn ninkii booliiska ahaa sababtuna waxay tahay inuu wato kaba buud ah ninkii booliiska ahaa ayaa wuxuu kor yimid ninkii Jonathan ahaa waa uuna ka ashashay dhaawiciisa waxa uuna isiri waa dhalinyaro caweyskii xalay khamri badan ku cabay ninkii booliiska ayaa ku canaantay dhalinyaradii in ay qamriga iska bidiyeen xalay waxa ay sheegayaan aysan kala ogeen waxa dhacday in ninkii booliiska ahaa furihiisa oo dhulka uu ka dhaco laakiin markuu ishiir ka soo qaado gacantiisa ayaa ku xanibantay bacaadka kadibna ninkii booliiska ahaa wuxuu adeegsaday sunta basbaaska ah suntii waa shaqaysay laakiin nasiib daro waxa uu waayay kala bar gacantiisa
xanuunkii haayo awgeed dhulka ayuu ku dhacay bacaadkiina ayaa laqay kayla ayaa ka soo qaadatay suntii basbaaska ahayd menj ayaa go'aansaday inuu isticmaalo kaba buud ah si uu u gaaro baabuurka ninka booliska ah laakiin waxaa dhacday in asagana laftirkiisa uu bacaad ku dhaco nasiib xumo bacaadkii ayaa laqay shonda ayadana waxay bilowday maryo inay lugaheeda ku duduubto si ay u gaarto baabuurka booliska waxayna ku guulaysatay inay gaarto baabuurka gilbert ayaa dabaaldegay laakiin nasiib daro bahalladii ayaa ku soo galeen ahaantiisa waxayna bilaabeen inay cunaan oo ayna goosgoostaan habeenkii marka la gaaray kayla ayaa waxay ku xadhibantay miiska uu saarnaa jonathan oo asagana caloosha dhaawac ka ah saddexdii dhallinyaradeed ayaa waxay ku guulaysteen inay gaaraan baabuurka ninka booliska ahaa laakiin kayla intaysan baabuurka soo galin ayaa waxaa ka hor yimid bahalkii oo iftiimayo bahalkii ayaa weynaaday asagoo soo weeraray kayla ayaa u heshay haan ay ku jirto gaas waa ayna ku buufisay bahalkii baabuurka ayayna gashay kayla waxay garwaaqsatay in jona uu dhaawiciisa u geeriyooday subaxii ayay soo gaceen waxayna ku soo kaceen nin daaqada gargaraacayo wuxuuna u sheegay in bahalkii dadku cunayay uu dhammaaday wax dhib ahna kuma jiro inay bacaadka ku logeeyaan waxaana ka soo badbaaday 2 gabdhood oo keliya filimkana meeshaas ayuu ku egyahay daawade